وسنقليو waxaan rabaa inaan idin sheego marka hore dhulka Ilaahay uu idin makansiiyay waxa ogtihiin laga soo bilaabo gobolka Bari ilaa iyo gobolka Sanaag ilaa iyo gobolka Sool dushiisa ilaa iyo gobolka Nugaal dhulkaas oo isugu jira Ilaahay isugu keen daray waxaanu cidna isugu darin oo bad ah oo buur ah oo banaan ah oo daaqsin ah oo xadeed ah oo xoolo daaqeen ah oo sool ah inaad talo ku heshaan oo tawfiiq ku heshaana macnaheedu wuxuu ahaa maanta idinka in marti la idin yahay oo talada deegaanadiina iyo dhulkiina maanta halkii ay ahaan lahaayeen kuwii jaangoyn lahaa siyaasadda gobolkaas laakiin waxaan ogaynaa qaybsantihiin aad qaybsanaateena waa ogtihiin waxa Hargeysa ka jira hal xildhibaan aan ku lahayn waa ogtihiin Garowe qiimaha aad ka leedihiin waa ogtihiin Cabdixakiin Dooba Daarad wixii kaga dhacay Garowe oo aan cidina kelmad ka oran waa ogtihiin Jamaal Xasan ninkii la oran jiray markuu xildhibaanka doonayay wixii ku dhacay ujeedada waxa weeyaan hadalkaygu waa siyaasadda ma aha reero ninka siyaasiga ah ee warsangeli markuu Garowe joogo qiimaha uu ka leeyahay ninka siyaasiga ah halka xukuma waxa uu agtiisa ka yahay waa ogtihiin Hargeysa waxayna inayna waxba ka ahayn waa ogtihiin ceeri gaabo meel inayda kaga qornayd maanta rabbigay baa dabkoodii santahay danabadoodii dadka ugu maleytaana waa dariri waayeen halka waxa idin dhigtay talaxumo waxaana idin dhigay ina Cabdisalaam ninka la yiraahdo ina Cabdisalaam roog casba Garowe u yaala roog casna Hargeysa u yaala ma garanayo anigu sababta rooga cas ugu yaala Garowe iyo Hargeysa labadaba waana siyaasadda deegaanadaas iyo dadka raalida ka ah dispute area wuxuu rabaa inuu u heeso Dani wuxuuna rabaa inuu u heeso Muuse Biixi halkaana wuxuu ku aasay warsangeli waana daawanaysaan aqoonyahan iyo indergarad iyo guurti iyo siyaasi minayna kuma yara ninkana rabbi ma aha rasuulna ma aha waa shakhsi ka ganacsanaya qadiyadiina cirki aniga haygeeya maanta Puntland buu wax ka dhisay muddo yar oo aan bil gaarin markii ay dhisnayd ayuu wuxuu ka digay Hargeysa Cabdullaahi Sifo loo sheegay waa la yiri markaas war maxaa tirahdeen iimaanka Allah ka qaad Hargeysa aaday waa Sultan Saciid ninkan ka hadlaya warsangeli marka waxaan rabaa inaan idin sheego waxaad dhisataan Hargeysa iyo Garowe dib ma laha inaad dhisataan waa magaalooyin Soomaaliyeed gurina waxa loo dhisaa in lagu noolaado walow mabda amaanta Hargeysa yaala aanu aqbalayn oo aanu soo dhaweynayn in qof Soomaali uu halka digo oo mabda ahagaya uu yahay mabda akhasa misana I don't care aaway dhulkiini waxaan ognahay xeebta dhererkeeda aa ogtihiin oo Ilaahay idin siiyay niman baa sheegta kuwiina aaminsan Puntland waxaan rabaa u sheego xeebaha laas qoray maanta ee baagamoodada ah ee every single day lagu shaqeeyo oo lagu durkayo askari warsangeli oo badihina ma joogo askari Puntland hoobadeedna ma joogo nimanna way sheegtaan inay idinkiga iyaga mas'uul ka yihiin bay sheegtaan iyo badaba maxaa idin dana xagee baa ku maqantihiin goorma ayaa imanaysaan inaad maakhar sheegataan inaad xamar ka degtaan inaad Puntland ahaataan inaad Hargeysa u heestaan waxaad wax ka barataan wixii laascaanood ku dhacay kala qaybsanaantii oo maanta raadkeedu uu ceerigaaba ka sii muuqdo oo waliba idinka sinta idinku hayo oo la warsangeli baa nala jira taa wax ka barta waa inaad cududiina iyo calafkiina iyo ciidankiina ma midaysaan aqniyo Ilaahay idinka dhigay subxaanahu wa ta'ala dhulka Ilaahay idin siiyay buurta ah haysataan iyo macdanta ku jirta cidina ma haysato ashqaas ganacsata ah inay idinka isma idin sheegtaan oo aragtidooda idinku hagaan oo idin kala qaybiyaan warsangeliyo sidani sima aha haddii Puntland la ahaanayana weli miyaad aragteen in mas'uulaha Puntland oo sheeganaya Sanaag walow ay maqaale igu tahay inaad caasimadda gobolka Sanaag babaran u rarteen oo cirgaab ka guurteen weli miyaad aragteen nin Cabdullaahi ka dambeeyo oo hadal haya Sanaag wiilasha Garowe ku tawassulaya Somaliland baa saatri weli miyaad maqashaan Sanaag iyagoo hadal haya waxay rabaan inaad kala qaybsanaataan oo qaybna dhulkiina iyagu ay xukumaan oo idin sheegtaan
qaybna ay muuse ninka la yidhahdo muuse bici uu xukumo sidaana aad warsangeli ku ahaataan oo aad sharaf ku yeelataan suurtagal ma noqonaysa taas waxaan rabaa inaan idinku idhaahdo waa idiin ducaynayaa ilaahay cududiinna iyo ciiddiinna iyo awooddiinna iyo dhaqaalihiinna haydin tuso war midooba oo tashada oo dhulkan haddii 3 maamul loo qaybiyana wuu istaahilaa haddii 2 loo qaybiyana wuu istaahilaa haddii mid weyn laga dhigayo oo dib boodhka looga jafayo oo ciidan iyo cudud loo samaynayn wuu istaahilaa warsangeliyow meesha ka soo muuqda oo kala qaybsanaanta iska daaya oo ina cabdisalaam ka hoos baxa ilaahay subxaanahu wa tacaala baad leedihiin ina cabdisalaam wuxuu idinku wadaa waa gud madow muuse ammaanayay maalin dhoweyto hadduu ninkaasi wandhay muuse ka odhan lahaa lasanad madaafiicda ka da hadduu isimada iyo guddigii 33 la hadli lahaa oo odhan lahaa warbalukaadii hawsha aan gale hadduu maalin masaalix ka shaqayn lahaa waa u qaadan lahaa inuu nabad ka shaqeeyo laakiin muuse wuxuu ku abaalmarinayay wuxuu raalli ka ahaa in laascaanood la qabsado laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa diiday iyo dadkii u dhintay warsangeliyo waxaan idin odhanayaa ma joogtaan ceerigaabo oo kama muuqataan mana joogtaan garowe oo kama muuqataan mana joogtaan hargeysa oo kama muuqataan bal meesha aad joogtaan soo sheega bal caawa meesha aad warsangeli joogo oo uu ka muuqdo oo macno iyo tala kale yahay wax laga weydiiyo oo aanan cabdisalaam iyo baran ahayn oo nin walba yasta u saara soo sheega warsangelina intaasaan odhanayaa okay nimanka xamara joogaan ku xijinayaa unukaala group iyo niman koofiyada qaata oo maanta aaminsan inay qarankii Soomaaliya iyagu yihiin oo aad ogtihiin kuway ahaayeen iyo wixii ay ka geysteen Muqdisho nimankaas waxaan rabaa inaan xasuusiyo horta nimanka raxan weyn oo aad u dhaaranaysaan oo baydhaba degan baydhaba maalinta iyo maalintii Xuseen Caydiid ciidankiisii loo amxaara ku soo jabisay iyo RRR sidii baa baydhaba amxaara u joogtaa nimankan aad ka sheekaynaysaan leeyahay amxaarada saarana cadow aan idinka ahayn maba lahaba baydhaba cabsi aan hawiye ahayn ma qabto baydhaba cabsi aan habar gidir ahayn ma qabto cabsidaasuna waa 100% cabsi jirta way idinku inaad maalinta doontaan qaranka Soomaaliyeed sheegataan oo tirahdaan qarankii baan nahay oo wadaniyiin baan nahay maalina aad tirahdaan xamar annagaale oo xamar idinku koofiidaysata iyo idinku unukaala guruubaba saa ku timaadeen la og yahay yaa idinku yiri qarankii Soomaaliyeed ee maanta qaranka Soomaaliyeed ka matala yaa idinku yiri wadaniyiin baad tihiin miyeedaan ahayn mooryaantii talada ku timi unukaale miyeedaan ahayn nimankii Cabdilshidaye galay miyeedaan ahayn ku ilaha farmaajo waa marxaan yaa idinku yiri wadaniyiin baan nahay baad tihiin wuxuu ugu yiri balaad arigaas maxaa dhageysta wuxuu ugu yiri nin macquul ah oo reer Muqdisho wuxuu ugu yiri su'aal baan ku weydiinay ugu yiri wuxuu ugu yiri ma jiro nin hawiye ah oo ku fekeraya inuu garowe madaxweyne ka noqdo maxay ma jirtaan ugu fekerayna xamarna ay xukumaan buu yiri waxaan ku yiri miyadan aaminsanayn inay xamar tahay caasimadda Soomaaliya ma aaminsanin buu yiri maxaad aaminsan tahay xamar inu kaala buu yiri waxaan ku yiri dawo wuxuu Xasan Sheekh talada ku yimi waana wuxuu maanta ku haysto waana wuxuu u leeyahay kaaraan baan qof iyo cod ku qabanaya teendal tagi maayo waase halka idin la gaadhaa waxaan rabaa inaan nimanka luuqad adag ugu sheego Soomaalida markay isii dadka idinka ugu liitay way idinka is xukumi waayay way idinka dadka miisaami jiray way idinka dambiyada dunida ka dhaca ku ugu waaweyn xamar ka sameeyay way idinka shanta xaafadad u kala xidhay Muqdisho way idinka Sheekh iyo Shariif iyo marti goor marti galin waayay xamar waa taadu idin waxay noqotay hadday Soomaaliya idin timi oo Cabdulqaasim weydinkii fiila Soomaaliya u diiday inuu fadhiisto hadduu Cabdullaahi fiila Soomaaliya geed tagay oo dad ku dhamaadayna cidda ka faa'iiday idinka ayay noqotay hadduu farmaajo 4 sano meesha joogay oo labadii gobol ugu xasarada badnaa nabad ka dhigay Shabeellada Hoose oo uu walaaleeyay habar gidir oo loo yaqaanay soo duulayaal iyo qabsadayaal iyo dadkii degal iyo midf iyo raxweyn iyo biyamaal iyo dir degana gobolka la walaaleeyay oo ciidan isku mid ah oo nabadda ka shaqeeya loo dhisay ay gacmaha is qabsadeen iyo mudug aadageeda waxa ka sameeyay uu walaaleeyay maxaa ka dambeeyay
أنا إذن شيء رحوين عد كوضني السن أو صومالي هي مجرته لكن أتشدد إن أمحار صار معها بوري هدي خير ليه هي بيه هذي عشان لهيد مصر هدي أوت هيسو أو أي تمر هيسو نيل كلام دسين هدي ولا المسلمة هنا رفح بي أفسح لها يرود يبيها عيدا يؤشغين سوا إسرائيل قسما بالله العظيم عبسيدا إثيوبيا أن كقبا أنا شخصيا تان مصر كقبا كبدن وحمقاراتو حويانه جهلاء oo aan nidaamka dawliga ah waxba ka aqoon baatalada wadanka haysa war wadan diris kula ah oo dabka ah kala qaadataan oo dadkaaga badh haysta oo haduu doono dadkaaga kugu dilaya ya oo qadiyada ay wada hadal taagan tahay oo Soomaali in loo mid war managa Ethiopia qabsan kartaa managa Ethiopia qabsan kartaa Soomaaliya nool managa Masar u baahan هذا الرجال ومتهدين وطنيين منتهين قرن ومدى الصوماليات نما متشان رحانوين نمن كلا يرى هذا برلمان كفدرال كاكوتشيرنا أركتدو ذا حرب يؤيهين هذا يقلبت كدريران مقدسنا وحويان قفنا كقدم بين مايو بين هيسو شيغنينا ومدنا كحشودا فرماتشوا من ريحان ونكا مقدسله وحاسا دولو التغانين بينك يا إذا كل قرن كسمارة متجا يا إذا كل وطنيين باتين آوي الراديو مقدش يتي في قرنكم آوي حاجات كوجي دين قرن متهيدين ومدى الصوماليين أفكاركم مهل نكرتان وحاشيك تان بينوي وحق ورادنا حراوي لما كانت تسنك بحياة أخيرا وحان تجي يا ماشي اللي راه هذا حركين أبيب إن أبيب نك اللي راه هذا حركي سوى صور وين يا waliba haday doonaan abaarsa hageen meeshii loo jiray raga lagu faraxmay maxay yeelay ninkaas fursad dahabiya buu helay maalintii ugu dambeysay Hargeysa uu ka baxayay yaa Allah yaa Karim Hargeysa kaga baxay haduu dadkiisii u tagay fursadii maalinta la tusay laba chance uu ninkaas u beerdariyay dhalinyarada heer awdal oo tusay inay barbar taagan yihiin waxa ahayd xaqiiqada inuu u sheego inaan Hargeysa waxba u ool sakina waxa ahayd inuu gudbo oo uu Jabuuti tago halka uu kaga dhaqaaqo inuu yahay hogaamiyaha dib u xareynta Awdal State oo amar uu ku bixiyo in ay ka baxaan Awdal iyo Salal iyo Gabaley asan maxaa yeelay hadaad ka warhaysaan Axmed Muumin Said wuxuu xaqiijiyay in nimanka khata qabtay ee garoonka ka qabtay ay madan yihiin ay belief inuu yahay wiilkii lahaa xiniyahan ka goynaya ee Musa Darka waxa waa madani waxaan tagnay buu booliska waa ka weyni si ay daan tagnay waan ka weyni asluubtiga jalasan tagnay waan ka weyni buu akhiiran waxaan loo sheegay buu yiri secret service rayada inay ka haysteen oo jirdilaan madaxa baa u galiyeen akhiiran waxa lagu sheegay galabtii meesha la yiraahdo Mandheera in loo dhaadhicay nimanka boorama mar horan anigu u sheegay meeshan waa inaad adeecdaa ninkii aabaha dilay وأنا أدعى نينكي أباها دلي وإلك كليان أوجها يا أبيب قلي وحكي لنيك على جمها يستو نمان كان رسوش ودي بوحكي شاقي ويريد دالمين بهاي ويل كست أو غوي دجن ونمان كان أمانته مشاهر كقاته أما هوس فرديانا وحويان وإنه رسوش أدون النقطة نمان كاه وإنه أدون النقطة إنجليزكو nimanku qatalayo qalbiga taabtay oo shisheeyuhu qalday oo kibirku soo qaaday iyagoo qabiil yara ku sheegtay qaran buuxa qarawga iyo nimankii la koray qaadka iyo beenta ayra dadka leeyihiin nimankii qoondaystay xanuunkay qabaan iyo kuwii ciilka qarin waayay qawleysatadii iyo tuugada nagu qabaamaysay narqootayaashii mudada qubayay dhiigeen wixii qaal Allah hada leeyahay nimankii qolshaxay qaymkii islaamka iyo kuwii xeerba qaban waayay haddii ay dad qiimo leeyihiin ma baqar qoomeen mar hore inay qalad galeen garan lahaayeen nimankaasi waxay leeyihiin ictiraafkii baa in yar noo soo jira bal hadda waxaad ka warantaa kuwaas Awdal iyo Ceere Gaabo iyo Sool ictiraaf hela maxaad malaynaysaa marka booraba nimanka la yiraahdo ina Abiibu tagay nimankaas ninkay xidhaan oo soo daayaan ma hadlo waad ka warhaysaan
xabsigooda laha idinma geliyo nimay xabsigooda galay oo ka soo baxay oo kii uu ahaan jiray noqda hore looma arag adhono hadda wuxuu in abib samayn doono mase filayo maanta bays baa haysataan aad dullaga iskaga dulqaadaan adduunyada guyaal iyo guyaal gabi ahaanteedba markay garasho diidaba rag baa doorta geerida gobonnimo ninkii doonayo gaasiyaa kacay inay cali baxar taageeraan oo xeryaha tababarka ay iska xaadiriyaan baa la gudboon aanay ahayn waa inay addoon u rukuucdo oo u sujuuda islam ay noqdaan boorama haddaydan aqbalin inaad dhimataan oo aydan aqbalin in xabad la idinla dhaco idinaa xabad wax la dhacdaan waa inaad addoon noqotaan absolutelyna wax la aqbali kara ma aha inuu wiil Soomaaliyeed maanta wiil Soomaaliyeed addoon u noqdo inuu wiil Soomaaliyeed addoonsado maanta wax la aqbali kara ma aha haddaa laakiin aqbashaan maxaan rayn samayn karnaa annagu hiil iyo hoo iyo hub iyo naf iyo maal garabkiinaanu nahay aqbala geerida oo dhinta sharafta gobonnimada waa loo dhintaa loona dhididaa waa inaad shafkaaga u dhintaa dhamac rasaaseed inaad dhimatida weeyi iyo inaad dhaawac noqotaa intaasna dhanay khiyaaray aad baan idin salaamayaa goliyo gobonnimo asalaamu calaykum